مسؤوليinta xisbiyada wadaniga u cudee gobolka Saaxil ayaa maanta waxay soo kormeereen goobaha ay ka socoto diiwaangelintu ee degmada Berbera. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale xaafadaha Berbera waxay ka bilaabeen wacyigelin kuwaas oo bulshada ku bogaadinaya inay qaataan kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha. waxa ugu horeyntiba halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiyada wadaniga u cudee gobolka Saaxil iyo sidoo kale gudoomiyaha doorashooyinka ee gobolka Saaxil waxaanay bulshada ay ugu baaqeen inay qaataan kaarka codbixinta maadaama lagu jiro gabagabadii ugu dambeysay ee diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolada Soomaaliland. waxa aan maanta kormeer ku soo wada marnay annaga oo Suudaan oo ah labada xisbi qaran dhammaan goobaha uu ka kooban yahay ay ka socoto diiwaangelinta wajigii labaad oo ka kooban 5 goobood. goobuhu markii hore waxay 14 goobood waxa ku soo haray imika oo diiwaangelintii labaad ee wajiga labaad lagu soo reebay 5 goobood. goobaha waxaan soo marnay iyadoo si wacan uga socota annagoo kula kulanay madaxdii komishanka qaranka ee gobolka Saaxil. waxaan runtii u mahadnaqaynaa dhammaan madaxda gobolka Saaxil ee komishanka qaranka oo gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo coordinator-kaba aan ku kulanay iyagoo shaqadoodii wata. dhanka kale halkan waxaan ku maraynaa saraakiishii xisbiga wadani iyo saraakiishii xisbiga muxuu ahaa ucid madaxdoodii waxaanu aad iyo aad uga faa'iideysanaynaa maanta waxaanu kormeer ku maraynay dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay muxuu ahaa degmada Berbera. albaab kasta waanu garaacay waanu garaaci doonaa waanu wadi doonaa waxaanu dadka aad iyo aad uga faa'iideysanaynaa inay diiwaangelintii sameeyaan inta aan sameeyay hore intii uu sameeyay aad iyo aad u mahadsan yahay. muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu isdiiwaangeliyo waana xaq uu muwaadinku leeyahay haddii aad adigu qaadatay ku baraarujiga kale aan qaadan. dhanka kale waxaan halkan uga faa'iideysanaynaa dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Saaxil waxaanu faraynaa madaxdooda joogta in ay ku wacyigeliyaan maadaama lagu jiro toddobaadkii u dambeeyay dadka inay kaarka qaataan. sida gobolka Saaxil guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa inay si uga hawlgalaan oo ay qaataan oo maxaan ku dhahay wax way xil badan isaga saaraan iyagoo uga faa'iideysanaynaa kumishagana mar labaad iyo mar saddexaad baan mahadnaqaynaa sida fiican ay hawsha u dardargeliyeen ay u wadaan. waxaan leenahay jazakumullahu khayr. waxaan halkan aan kelmad ka oranayaa bulshada reer Saaxil baan leeyahay waxaan leeyahay muddo kooban oo 5 maalmood ah inoo hodhay 5 maalmood laga faa'iideysto waliba waxa lagu jiraa oo aan bulshada xusuusinaya tartan kale oo gobolada lagu jiraa. waxaan leeyahay reer Saaxil oo ka faa'iideysta muddada yar ee inoo hodhay 5 maalmood waxaan doonayaa inaad si fiican u qaadataan oo wixii aan qaadan ay qaataan kaarka insha Allah. ummadda ugu horeyn gobolka waxaan ugu baaqayaa inay macnaha isdiiwaangeliyaan wixii qaatay mooyee waxa hadhayna inay isdiiwaangeliyaan saa dadka hore macnaha mas'uuliyiinta horeba sheegeen maxaa yeelay qofku waa xaq dastuuri oo uu leeyahay waa waxa isbedelka uu doonayo iyo macnaha cidda uu rabo uu hadba noqoto tagalayaasha iyo haday noqoto madaxtooyada iyo haday noqoto xisaabta mid walba waa haday jeer qofku ku codeynayo. waxaan ku jirnaa wajigii labada diiwaangelinta doorashooyinka waxaa dhimid muddo kooban oo 6 cisho ah 5 cisho ah saaka salaadii hore waxaan ku jarmadnay 3 goobood ee laga sii diiwaangelinay dadka kadib waxaan soo baxnay xaafadaha dhexdooda sidaan u soo diiwaangelinay xaafadaha soo garaacno dhowr diiwaangelin ayaan sameynay wacyigelina waa waajib qaran oo looga baahan yahay qof kasta muwaadin Soomaaliland inuu kaarka qaato cidda aan kaarka qaadan ku diiwaangeliyo. kaarku waxa weeye xaq uu muwaadinku leeyahay inuu ku codeeyo inaan guryaha garaacno oo xaafadaha soo kormeerno soo eegno weydiino inuu xaafad kasta qaadatay oo kaarkii haystaan. aad baan uga mahadcelinaynaa xaafadihii iyo dadkii aan soo marnay ee qaatay kaarka isdiiwaangeliyay. inta dhimanna waxaan leenahay isdiiwaangeliya gobol ahaan baa loo tartamaya degmada Berbera iyo gobolka Saaxil waxaan leeyahay yaana laga badan codka yaana laga badan. waxaan leenahay dadka si fiican isu diiwaangeliya waayo xaafado badan baan soo marnay waxay noo sheegeen inay si fiican isu diiwaangeliyeen inta hadhayna waxaan leenahay si fiican isu diiwaangeliya waayo hadhow codka iyo cududaba waxaan ku bedelinaa waa kaad inaynu isdiiwaangelino waa xaq. waan ku mahadsantiin inaad shaqada dhinaciina ka wadaan oo haday wacyigelin noqoto iyo haday kor joogteen anagu idinkaan idin shaqeynaynaa bulshada reer Saaxil baan u shaqeynaynaa dadka halkan jooga ee kala duwan xusbi leh cid walba leh baan dhexunahan u shaqeynaynaa. waan ku mahadsantiin inaad idinkoo anagu shaqadayda ku guda jirnay aad noogu timaadaan 5 goobood ee gobolka ku soo harayna hawlahoodu si wanaagsan bay u socdaan sida la sheegay maanta marka laga reebo 5 casho haray 5 casho bulshada gobolka Saaxil dhammaantood waxaan leenahay ka faa'iideysta. Cabdirasaaq Qaasin telefishinka Saab magaalada Berbera.